wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug cabdinaasir geyle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa. wasiirka qorsheynta ayaa sheegay inuu casilaadiisa u gudbiyay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor isla markaana uu dib faahfaahin uga bixin doono sababta uu isku casilay. cabdinaasir geyle ayaa noqonaya wasiirka labaad ee iska casila galmudug, waxaana horey sanadkii hore iscasilay wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi. qoraal uu bartiisa Facebook kusoo qoray ayaa ahaa sida tan: bismillaahi, waxaan maanta u gudbiyay madaxweynaha galmudug warqadii aan iskaga casilay xilkii wasiirka wasaaradda qorsheynta, horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee galmudug. waxaan gadaal kasoo faahfaahin doonaa sababta keentay iscasilaadeyda oo aan ku faahfaahin doono shir jaraa'id. waxaan si guud ugu mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha dowladda galmudug iyo shacabkeeda. sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa howlwadeenada wasaaradda qorsheynta, horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga sida hagar la-aanta ay la shaqeeyeen. iscasilaadda wasiirka ayaa kusoo aadaysa xilli uu u taagan yahay mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Dhuusamareeb.